waxaan soo diyaariyay geedka lemon chives waxa la yiraahdaa liin dhanaanta dad iska wada garanaysiin oo taran ahaantii meel walba ay ka baxdaa waa geed aad u muhiim ah oo cuntada ku cuno oo dhadhanka ka qayb qaata oo maxay ahaydeen caloosha haddii ay xanuuntaan isticmaalno hargab haddii ay ugu dhaco aan isticmaalno iyo fashano badan ayaa loo isticmaalaa liin dhanaanta marka halkan isagoo si faahfaahsan ayaan ku arki doonaa objectives-kayga waa inaan introduction liin dhanaantii picture-kayga aan aragno advantage-ka ay noo leedahay iyo disadvantage-ka ay noo leedahay inaan aragno iyo waxay noo isticmaalno waxay daweyso iyo healthy benefits-ka ay noo leedahay haddaba aan bilaabno liin dhanaantu lemon chives waxa la yiraahdaa liin dhanaanta waa excellent source of vitamin C waa meel liin dhanaanta waxa laga helayaa vitamin C that study have shown vitamin C jirka nutrient ayuu siinayaa vitamin C ga preventing modern disease waxay ka hortagtaa disease badan oo bones iyo meelaha ku dhaca connective tissue ay ka hortagtaa liin dhanaanta oo ka picture-keygii waan wada garanaynaa intiina badan liin dhanaanta haddaba advantage-ka ay noo leedahay advantage-ka ay noo leedahay liin dhanaantu waxa kamid ah it promotes hydration inay jirka biyaha badan ka saarto inay tahay meel vitamin C da laga helo inay jirka ay naga rido baruurta badan oo dadku isku dhuubaan loo isticmaalo in skin-ka xitaa la marsado oo soft ka dhigto iyo in ay kaliyaha dhagaxa marka dadka kaliyaha maxay inay dhagax fadhiisto kale loo isticmaalo oo liin dhanaanta la xabo iyo haddaba disadvantage-ka ay noo leedahay liin dhanaantu waxay dhaawacdaa ciridada ilkaha ayay dhaawacdaa marka la badsado booniskana way dhaawacdaa xanuun jeerid la yiraahdo ayay keentaa iyo xanuun ulcers la yiraahdo haddaba waxaynu isticmaalnaa digestion-ka liverka iyo kidneys-ka kaliyaha iyo beerku haddayna xanuunayaan waanu isticmaalnaa infekshanadoo dhan waanu isticmaalnaa liin dhanaanta waxa kaloo isticmaalnaa hunqaacada travel sickness-ka oo ah meelaha markaan safar kalayno kale hunqaacada inagu sababo baabuurka aan raacayno iyo qufaca iyo healthy body remove inay ka saarto jirka sunta hadduu qofka tusaale ahaan wax qaniino ama hadduu wax cunto wax galeen kala cuno liin dhanaantu aad bay muhiim inoogu tahay treatment-iga waxaan iskaga daweynaa liin dhanaanta diseases-ka maxay ahayd inay ku dhaca caloosha inta badan dumarku waxay iskaga daweeyaan oo kale marka ay walacayaan oo kale bilaa horeysa ee uurka kaliyaha kale way nadiifisaa marka qofka kaliyo xanuunayo wadnaha sidoo kale all infection oo dhan waa loo cabi karaa oo loo isticmaalaa health haddaba caafimaad ahaan liin dhanaantu waxay noo leedahay waxay yareysaa body weight-ka cholesterol-ka uu lipids-ku jirka ku sameeyana way naga yareysaa inay reduce digestion problem-ka haddii cuntadu inay burburto ay maxay ahayd inay dhibi ka jirtana waa cuntada qofku uu qaadan karaa liin dhanaanta stop internal bleeding-kana way joojisaa blood pressure-kana way hoos bay u dhigtaa vomiting-ka iyo qufaca iyo hunqaacada iyo waxa dhan waa loo isticmaalaa indigestion-ka iyo constipation-ka waa loo isticmaalaa blood pressure-kana wayna control-ortaa